ururkan oo lagu magacaabo Race Social Service oo ah urur samafala isla markaana ka shaqeyn doona arrimaha horumarinta bulshada gobolka Sanaag ayaa habeenimada xalay laga daafuray degmada Baran ee gobolka Sanaag waxaana munaasabada daafurka kulankan shir gudoomiyaha ururka Yaasiin Muuse Cali Faatax sidoo kale waxaa munaasabada daafurka ka soo qayb galay aqoonyahanka iyo waxgaradka kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha bulshada sida horumarinta iyo waxbarashada degmada Baran sidoo kale waxaa munaasabada ka soo qayb galayaasha looga warbixiyay higsiga ururka iyo muhiimadda ay bulshada u leedahay in laga wada shaqeeyo arrimaha bulshada iyo danta guud ugu horeyntiina mas'uuliyiinta ururka ayaa ka warbixiyay ururkan iyo waxyaabaha uu ka shaqeyn doono wax yar hadii aan idinka warbixiyo fikradan waxay ka timi fikrad dhalinyaro bay ahayd gobolka Minnesota in aanu markaan sunimi aanu go'aansanay in aanu bulshadii aanu labada dhinacba xaggan aanu wax ka qabanno fikradu saasay ku timi kadib markaan fikirnay waxaan go'aansanay in aanu sameeyno number of NGO ah oo markaas aanu kaga jawaabno baahiyaha bulshada yoolka ururku waxa weeye in dadka adeega bulshada la gaarsiiyo tan labaad oo aanu xoog saarayno waxa weeye isku xidhka bulshada labada dhinac halka dalka iyo dibadda oo markaas aan xoojino wax wada qabsiga bulshada ururku wuxuu aad iyo aad u dhiirigeliyaa empowermentiga in dadku iyagu isku kalsoonaadaan oo ay wax wada qabsadaan oo aanay noqon dad shisheeye ku tiirsan ama kaalmo raadiya marka ay noqdaan dad iyagu problemkooda xallisan kara waxyaabaha uu organizationku rabo inuu hiigsado mustaqbalka dhow ayaan iyadana ka oranayaa tan koowaad haddaan xoog saarayno waa program development inaan soo saarno barnaamijyadii bulshada lagu caawin lahaa oo meetingkan inuu asaasi yahay inaad talooyinka bixisaan iyo sidii organizationka markaas looga caawin lahaa inuu helo programo wadanka ah si wadanka aan uga hawlgalno maadaama anaga inta badan xagga ku maqanahay inaad taasna aad talooyin aad ka bixisaan tan labaad waxa weeye sidii hore aan u sheegay inaan serviceska aan gaarsiino meelaha aanay adeegyadu gaarin tan saddexaad waxa weeye barrier reduction oo ah in aan bulshada aad iyo aad aan xoog u saarno inaan ka caawino waxyaabaha caqabada ku ah tusaale ahaan waxaa jira caqabado badan oo dhaqana oo dhanka shaqada la xiriira oo dadku qaarkood inay maartay shaqooyinka qaar aan ka shaqeyna oo kale tusaale ahaan waxaa jira oo kale barriers kale baa jira oo dadka ka haysta inay shaqo helaan barriers kale baa jira oo tusaale ahaan dadka raba inay wax beertaan oo kale iyagana caqabadaha jira marka inaan dhiirigelino dadku inay wax qabsadaan oo wax beertaan oo wax tabcadaan oo wax bartaan ayaa ka mid ah caawa waxa farxad inoo ah in aad nagala soo qayb gashaan xafladda daafurka NGO-ga magaciisu uu halkan ku qoran yahay Race Social Service muddo waxaan ku shaqeynaynay runtii si volunteer aan ku shaqeynaynay deegaankana runtii intii tabartayda ahayd waan qabanay waxa ugu horeysa waxyaalaha aan bilaabay number 1 waxa ugu horeeyay dhismaha deerka ceelka barameed oo dumay xilliga 2020 waxaan ku xijiyay qabuuraha oo aan wax asaas lahayn runtii oo aan u dhisnay qol iyo masaajid iyo deer iyo meel yar oo teenda oo la harsado waxaan kale ku xijinay markaa masaajid oo walaalo muxsiniin ay dhiseen waxaan kale ku xijiyay shambirkood oo dad eedan yara aan runtii u dhisnay oo magaalada ku nool waxaan kale sameynay malcaamad oo aan ka sameynay magaalada Durduri waxaan kale aan sameynay aniga iyo dadka muxsiniinta ah aan waaga isla shaqeynayba laba suuli oo aan ka dhisnay masaajid ku yaala Durduri waxaan kale hadda ayaamii ugu dambeysay aan dhisnay masaajid aan dhisnay guri baan dhisnay ku yaala magaalada Baran oo aan u dhisnay dad eedan yara waxaan dhisay walaalaha ururka kalkaal ama qayb kamid ah ururka kalkaal ee ku nool North America waxa farxad caawayno inaynu joogno maanta caawa inaynu xafladii joogno NGO-ga runtii dawladda mahadi wax walba markii laga soo bilaabo runtii basically si hoose markii wax laga soo bilaabo marwalbana anigu runtii waan hiigsanay insha Allah taala inaan NGO-gaas maaragtay aan u kaco waxaan u mahadnaqayaa qoladan isku soo dubariday race munaasabadan
runtii de waa wax weyn qof ka shaqaynaya arrimaha bulshada oo intaa inooga yimi waxaan arki jiray war hay'ado ama ajnabi ah oo meelo kale oo hadday rabaan dana kale ama wixii dadka loogu qabanayay ka badan iyaga ku noqonayo laakiin warbajoogteeni haddii ay garteen in ay dadkoodii wax u qabtaan oo intaa qolyahaas qabanaya oo kale ay samayn karaan ay fahmeen waa alxamdulillah waa ilaahay waxa loogu mahadnaqo in caqabadaha dhalinyarada maadaama waddanka shaqaanta u badan tahay iyana isku dayayaan inay wax ka qabtaan runtii waa bogaadinaynaa waana soo dhawaynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada waddankiinii weeye baan idinka mahadcelinaynaa waan ku faraxsannahay in aad noo timaadaan nala wadaagtaan aragtidaas iyo NGO-ga cusub wixii fikra oo aanu haynona waa idinkala bakhaylmayno waa idin soo gudbinaynaa runtii xogogaal badan baa dalka laga yahay wixii tala bixana iyo wixii fikir ah iyo wixii kaleeto aad u baahataan waa aragnimada waa la idinla wadaagi doonaa insha Allah taala waa baahi weyn baa buuxinaysaan shaqadana aan already Minnesota ka qabataana waa si fiican u soconaysaa insha Allah Ilaahay ku barakeeyo waan ku soo dhawaaneynaa any help or support u baahan tihiin diyaar baan nahay anina waxaan ahay kuwii dibadda ka soo noqday inay bulshada caawiyaan marka any experience or advice na diyaar baan ahay inaan ku siiyo meeshan baahi badan baa jirta waa inaan baahida priority siino everything one day ma la qaban karo laakiin sidoo walaal sheegay dhalinyaradan oo shaqo la'aanta oo bulshadana problem u keenaysa sometimes insecurity bay u keenaysa iyagana mental health kooda affect garaynaysa haddana waxaa sheegtay mental health kana one of the areas ka shaqaysid weeye taana baahi weyn weeye waa inaan youths kana caawino runtii waa institution ama NGO bulshadu baahi weyn u qabto teamka sameeyay waan ugu mahadcelinayaa waan la soo dhawaynaynaa runtii baahi weyn baa loo qabaa bulshada Soomaalidu si guud runtii waxay u baahan tahay inay isku filaato oo la baro sidii ay isugu filaan lahayd oo wax weeye maxay ahayd bulshooyinka East Africa ay ula tartami lahayd waxa moodaa bulshadeenu in ay soo yaraanayso sida uu maxay ahayd injineerku ka dhawaajiyay in ay iyadu isku kalsoonaato oo isku tiirsanaato kan hora ula socdayo Cabdifataax Guure baasoo riya ah in badan iska wareysan jirnay laakiin caawa fikirkii in badan uu dhowr sano ka guuxayay oo si khayri ah tabaruca ugu shaqeynay inuu hirgalo oo wali walaalihiisna garab istaageen rag badan ay la shaqeeyeen oo caawa halkan nagala soo qayb galay oo kamid yahay Yaasiin awal fikirka isla wadeen laakiin caawa taaba galay waxa leenahay hambaliyo ilaahay ka dhigo injooyada guuleysta bulshadoodana wax tara ilaahay ka dhigo ducada muhiim ah in loo duceeyo sidoo kale injooyo badan baa jira oo shaqeeya laakiin injooyada guuleysta waxa weeye kuwa wuxuun tarkiiska saaro xooga saara maxaa yeelay awoodda haddii hal meel targetka laga dhigo oo meel loo bato meeshaas bulshada ka buuxinaysa sida walaashana iskuul furtay deegaanka u baahnaa qof kastaba hadduu meel qabsado oo dhaho bulshada halkaas ka buuxinaya waa wada guuleysanaynaa marka insha Allah waa soo dhawaynaynaa